السلام عليكم دمان أصحابتي وسلامتين كسو دوادا channelka حيدرتج وعشركي 13 oo taxana oo ku saabsan barnaamijka Photoshop casharadaas oo si free ah ugu bixiyay channelkayga waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo Xaydar maanta casharkan wuxuu ku saabsan yahay adjustment layers haddaan gudo galno casharkeena maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay 19 adjustment layer ee uu leeyahay Photoshop waxa laga yaabaa inaadan weliga adeegsan ama aad in badan soo adeegsanaysay adjustment layers maanta waxaanu sharxi doonaa qaabka ay u shaqeeyaan iyo mid kasta sida ugu habboon oo loo adeegsan karo adjustment layer haddaad weydo waxaad ka helaysaa window kadibna waxaad dooranaysaa adjustment ayaad tigta saaraysaa wuu ku soo baxayaa 19 adjustment layers ayaa ku soo baxaya waxaad kaloo ka heli kartaa panelka layers ayaad ka dhex helaysaa adoo tagaya calaamadan halka kaaga muuqata okay ayaa leedahay waxa ku soo baxaya 19 adjustment layer haddaynu ugu horeysino solid color markaad ku dhufato waxa ku soo baxaya qaabka ayaa ku soo baxaya waad qarin kartaa adoo calaamada isha taabanaya waxaad sameyn kartaa oo kale calaamada thumbnailka ayaa waxa ku dhufanaysaa double click kadibna waxa ku soo baxaya color picker-ki waxaad sameynaysaa colorkaad rabtay aad u bedelinaysaa hue root color-kaaga ayaad bedelaysaa waxaad rabtay aad u bedelaysaa kadib okay ayaa leedahay qaab badan ayaad wax uga bedeli kartaa haddaad rabtid inaad effect ugu sameysid sawirka aad hagaajinayso marka kan ugu horeeya waxaad sameyn kartaa blending mode ayaad tagaysaa kadib qaabkaad rabtay aad u bedelaysaa blending mode-ka hadba adiga aad rabtid aad u bedelinaysaa waxaad sameyn kartaa oo kale opacity-ga ayaad ka yareyn kartaa fiilkana sidoo kale qaabkaad rabtid aad wax uga bedeli kartaa marka solid color qaabka ayaa loo adeegsadaa haddaynu ku xijino kan labaad oo ah gradient markaad ku dhufato waxa ku soo baxaya box-ka kan yar kadib waxaad ka bedeli kartaa box-kan color-ka kadib waxaad ka bedeli kartaa style-ka uu yaalo gradient-gaagu linear uu noqonayaa radial angle reflected mise diamond qaabkaad rabtid aad deysanaysaa in linear ayaan u deynayaa angle-ka ayaad ka bedeli kartaa adoo calaamada tan wareejinaya waxaad bedeli kartaa oo kale scale-ka soo weyneynaysaa soo yareynaysaa halka 100 inogey kana 90 inogey double click ayaa ku dhufanaysaa haddaad rabtid inaad wax ka bedesho first ayaad sameyn kartaa okay ayaa leedahay waxaan rabaa inaan isbedelka ka arko sawirkayga waxaan adeegsanayaa blending mode-ki qaabkan rabo ayaan u adeegsanayaa anoo calaamada kor ugu kaxaynaya kii qanciya ayaan u deysanayaa ama kii aan isdhaho markaa uu ku fiican yahay ayaan u deysanayaa opacity iyo fiilka labadaba ka yareyn kartaa oo haddii mid ka mid ah 8 special blending mode-ka aad adeegsato kana saacadaynu kaga gudubno pattern isagu waa maxay texture ayuu sameynayaa halkan ayaad ku dhufanaysaa si aad ugu bedesho pattern-kaad rabtid kan ayaad u bedeli kartaa ama kan ka inooda waxaad sameyn kartaa oo kale scale-ka ayaad weyneyn kartaa ama yareyn kartaa okay ayaa leedahay ama waxaad sameyn kartaa oo kale load ayaad ku sameyn kartaa kuwa cusub ayaad keeni kartaa qaabkaad rabtid aad wax ugu bedeli kartaa opacity-ga ayaad yareynaysaa si aad u aragtid sawirkaagii isbedelka ku yimi normal multiply blending mode ayaad adeegsanaysaa pattern qaabka ayaa loo adeegsadaa brightness and contrast haddaynu u gudubno kan waxaad sameyn kartaa kor ayaad wadaysaa waxaad kordhinaysaa iftiinka ku jira sawirkaaga ama hoos ayaad geynaysaa waxaad yareynaysaa iftiinka ku jira sawirkaaga waxaad sameyn kartaa oo kale contrast-ga ayaad badinaysaa wax badan iyo contrast-ga markaad badisid sidoo kale blackness-ka vibrancy and saturation haddaad yareysana kulli way yaraanayaan marka qaabkaad rabtid aad adeegsan kartaa ama auto ayaad sameynaysaa Photoshop isaga ayaa kuu saxaya qaabka markaa uu isdhaho ugu fiican yahay marka isna qaabka ayaa loo adeegsadaa waad qarin kartaa si aad u aragtid isbedelka ku yimi sawirkaaga waad soo muujin kartaa blending mode ayaad adeegsan kartaa kan ku xiga haddaynu ku xijino levels markaan nimaadno presets ayuu leeyahay levels increase contrast lighter hadba ka rabtid ayaad adeegsanaysaa kii ku qanciya ama adiga waxaad sameysanaysaa mid kastama markii la joogo levels RGB colors-ka ayaad wada saameynaysaa ama mid ka mid ayaad dooranaysaa saddexdoodii tusaale ahaan kan waxaynu ka wada shaqeynaynaa saddexdooda
markii levels la joogo dhinaca kan waxaa jooga highlights, halkana shadow, dhexdana waa midtone, waxaan aad aragtaan waa histogramki. markaas dhinaca kan usoo kaxaysid waxaa badanaya highlightska ayaa badanaya, marka dhinaca kan usoo kaxaysidna shadowska ayaa badanaya, dhexdana midtoneka ayaa jooga. xagga markaad kaxaysid aad tan timaadid xagga waxaa badanaya highlightski, dhinaca kan waxaa badanaya shadowga ugu madoobaanaya. qaabka ayaa loo adeegsadaa levels. haddaynu u gudubno kan ku xigo oo ah curves, isku si ay u shaqeeyaan levels laakiinse wuu ka sarreeyaa. sidoo kale isna presets ayuu leeyahay, qaabkaad rabtid ayaad wax uga bedeli kartaa. defaultigan inuu kusoo celi RGB colorska miyaad ka shaqeynaysaa mise mid kastoo ka mid ah mar ayaad ka shaqeynaysaa, adiga ayaa dooranaya. hal meel ay kula duwan yihiin kaasoo ah levelsku waxay aadayeen left to right, kana up and down ayuu ugu shaqeynayaa isna. xagga waxaa jooga highlightski, kana shadowgii. markaad xagga usoo kaxaysid shadowga ayaa badanaya, markaad xagga u kaxaysidna highlightska ayaa badanaya. waxaad samayn kartaa points ayaad ku dari kartaa mid kastoo ka mid ah, adiga ayaa maamulaya. ama waxaad sawiraysaa mid qurux badan oo aad u sawiratay adoo pencilka adeegsanaya, ama auto ayaad adeegsan kartaa oo ah Photoshop isaga ayaa ku saxaya. marka qaabka ayaa loo adeegsadaa isna. haddaynu ku xijino kan ku xigo oo ah exposure. isna presets ayuu leeyahay -1, -2, +1, +2. haddaad badisid waxaa badanaya highlightski uu sawirku lahaa ayaa badanaya, haddaad yaraysana wuu yaraanaya. offsetkuna wuxuu controlaa shadow uu leeyahay sawirku, gamma correctionkuna midtoneka ayuu maamulaa. marka isna qaabka ayaa loo adeegsadaa. haddaynu ku xijino kan ku xigo oo ah vibrancy. sawirka waxaad ka dhigi kartaa less vibrancy or more vibrancy. haddaad rabtid inaad less vibrancy ka dhigtid sawirada aad uma muuqanayaan, laakiinse haddaad more vibrancy ka dhigtid waxaa laga yaabaa colorkii inay soo yara baxaan. laakiinse saturationku wuxuu sameynayaa color kastoo ka mid ah aad ayuu isu saarayaa ama wada qarinayaa, oo black and white ayuu ka dhigayaa, marka uu kasii sareeya vibrancy. isna qaabka ayaa loo adeegsadaa. xaggan ayaa waxaad gelin kartaa lambarkaad rabtid, tusaale ahaan 60 halka ayaad gelin kartaa, kana waxaad gelinaysaa 40. kan ku xiga haddaynu eegno ah hue and saturation. hue and saturation isna sidoo kale presets ayuu leeyahay, qaabkaad rabtid aad wax uga bedeli kartaa. red post, all style, increase saturation more. qaabkaad rabtid sabiya strong saturation, yellow post. qaabkaad rabtid aad wax uga bedeli kartaa, adiga ayaa dooranaya. kan defaultiga inooge master oo ah kalarada aad ka bedelayso waxaa ka mid ah red, yellow, green, cyan, blue ama magenta, ama kulli ayaad wada bedelaysaa adoo adeegsanaya master. calaamadan hue oo ah root colorkii ayaad ka wada bedelaysaa. kadib colorkaad dooratid wuxuu ahaanayaa mid tiqa mise mid aad u khafiifa. lightka wuxuu ahaanayaa mid aad lightkiisu u badan yahay mise mid dark. sidoo kale waxaad samayn kartaa only one color ayaad dooran kartaa adoo dooranaya colorize. kadibna hue ayaa bedelaysaa, hadba colorkaad tagtid ayuu sawirku isu bedelayaa. marka hue and saturation isna qaabka ayaa loo adeegsadaa. haddaynu u gudubno color balance. color balance isna wuxuu maamulaa saddexda tan: shadow, midtone iyo highlights. tusaale ahaan midtoneka ayaa waxaan rabaa inaan wax ka bedelo, colorka ayaan ka bedelayaa cyan iyo red, magenta iyo green, yellow iyo blue. channelskii ayuu hadba mid lixdii color red iyo yellow iska soo horjeedeen, magenta iyo green, yellow iyo blue. marka isaga ayaa ku tusinaya. isla markaa bedelayso waxaad arkaysaa sawirka isbedelka ku imaanaya, markaa sawirka wixii qaab daro ku keenaya adiga ayaa iska daynaya. color balance-na qaabka ayaa loo adeegsadaa. ka ku xiga haddaynu u gudubno oo ah black and white. black and white sidoo kale wuxuu leeyahay presets. waxaad samayn kartaa blue filter, darker green filter, high contrast blue filter, high contrast red filter. marka black and white waxaad samayn kartaa oo kale qarin kartaa, waana soo muujin kartaa. sidoo kale halka waxaad uga jeedaan marka black and white haddaynu qarino waxaad aragtaan intaan black and white laga dhigin sawirka colors ayuu lahaa. color kastoo ka mid ah oo halka kasoo muuqanaya marka black and white laga dhigo mid madow ayuu ahaanayaa mise mid aad u cad. coloradii halka kaga muuqdo tusaale ahaan yellowga
buugga halka ka muuqdo inuu yellow ahaado. waad aragtaan kan yellow ayuu ahaa, sawirka halka ka muuqanayana only black and white buu ku shaqeynayaa. mid cad ayaa rabtaa mise mid madow. tusaale ahaan kan greenka waad aragtaan ku isbedel ku imaanayo waa kan, kaas green weeye. marka qaabka ayaa loo adeegsadaa, ama waxaad ku samayn kartaa tinti oo ah hal color ayaa adeegsanaya. tusaale kaa ayaan rabaa inaan adeegsado, ama colorka qaabka rabto ayaad adeegsan kartaa. blending mode ayaa ka bedeli kartaa hadhow, qaabkaad rabto waxaad ugu bedeli kartaa. opacity ayaad ka bedeli kartaa. black and white qaabka ayaa loo adeegsadaa. haddaynu u gudubno kan ku xigo ah photo filter isagu wuxuu controlaa sawirka temperature-kiisa, mid warm ah qabow ayaa sawirka hadba macnaha qaabka loo sawiray, meel qabow miyaa lagu sawiray, sawirka meel kulul ayaa lagu sawiray, iyo colorska oo temperature-ka ayuu maamulaa. ama hal color ayaad u samayn kartaa. waxaad samaynaysaa halkan ayaa ka maamulaysaa, kulli way soo shabahaan. okay ayaa leedahay. density-ga uu yeelanayo colorkaasi cufnaanta, mid khafiifa mise mid aad u badan. marka isna photo filter qaabka ayaa loo adeegsadaa. haddaynu eegno kan ku xigo ah channel mixer isaga mid ayaad dooranaysaa, red, green, blue. tusaale ahaan redka markaan doorto halka waxaad aragtaan only 100% ayaad wadi kartaa. redka ayaad dooranaysaa, tusaale ahaan halkaagii. haddaan ka badiyo calaamada warning-ka ayaa isoo baxayso triangle-ka ah, wuxuu leeyahay 100 wuu dhaafay. marka midkaa dooratid ayaa wuxuu yahay 100. greenka tusaale ahaan waa kan 100 ayuu, blue-gana sidoo kale haddaan doorto 100 ayuu yeelanayaa. wuxuu yeelanayaa isna sidoo kale presets ayuu yeelanayaa, default-ka noori. isna channel mixer qaabka ayaa loo adeegsadaa. waxba ka bedeli kartaa sawirkaagii, saas ayuu ahaa, haddana sida ayuu noqday. kan ku xiga haddaynu eegno oo ah color lookup waxaad si fiican u garanaya dadka. tusaale ahaan waxay adeegsadaan Premiere Pro markay fiidiyoyaashooda u sameynayaan color correction. LUTs ayaa la adeegsadaa badanaa. tusaale ahaan tan presets ayuu leeyahay, LUTskaas fogi midaam yaa rabtaa. color lookup-na qaabka ayaad u adeegsan kartaa. isaga waad dooranaysaa, presets ayuu leeyahay, ama load ayaad samayn kartaa, kuwa cusub ayaad keenaysaa. haddaynu u gudubno invert wuxuu sameynayaa colorkii ayuu rogayaa. sawirka hadduu madow ahaa cadaan ayuu ka dhigayaa, hadduu cadaan ahaa madow ayuu ka dhigayaa, kulli waa isku dhex qasayaa. sawirada ayuu rogayaa, invert ayuu ku sameynayaa. haddaynu eegno kan ku xiga oo ah post-trace wuxuu abuurayaa isagu texture ayuu sawirka ku abuurayaa. post-trace levelka waa kordhin kartaa, haddaad kordhiso wuu yaraanayaa, laakiinse haddii aad yarayso RGB-ga ayuu laba u qaadanaya. 6 color ayuu soo saarayaa. RGB colorskii bear 2 ayuu qaadanayaa. marka 6 color ayuu soo saarayaa. marka texture-ka ayuu abuuraa. haddaad badisana wuu yaraynaya, haddaad yaraysana wuu soo badinaya. tusaale ahaan qaabka ayuu ku wanaagsan yahay, texture qurux badan ayuu abuuray. post-trace waxaa ku xiga threshold, isna sidoo kale black and white ayuu ka soo saarayaa sawirkaagii. qaabka ayaa u maamuli kartaa isaga. marka waxaa xooga bedeli kartaa blending mode ayaa xooga bedeli kartaa. haddaynu eegno gradient map, gradient ayaad adeegsanaysaa. sawirka halka ayaa ka bedeli kartaa, colorka aad rabtid ayaad u bedeleysaa. tusaale ahaan colorka ayaan rabaa inaan u bedelo. waxaad sameynaysaa reverse ayaad sameynaysaa, sawirka waa lagu rogay, kadib waxaad aadaysaa blending mode. qaabkaad rabtid ayaad u sii adeegsanaysaa. gradient map, opacity ayaad yareyn kartaa, halka ayaad tegi kartaa. tusaale ahaan waxaan rabaa mid cusub inaan soo load gareeyo, halka ayaa ka load gareynaysaa, macnaha waa soo qaadanaysaa. waxaad samayn kartaa mid black and white ayaad dooran kartaa, halka ayaad ka dooranaysaa. markaasna qaabka ayaa loo adeegsadaa. haddaynu eegno kan ugu dambeeyo ah selective color, isaga wuxuu la mid yahay hue and saturation. kan waxaa la dooranayaa red, yellow, cyan, magenta and black and white. 6 color ayaa la dooranayaa. casaanka ayaad rabtaa inaad hagaajiso,
wax yar ayaad ku daraysaa halkan magenta yellow qaabka ayaasna loo adeegsadaa hadba kalarka rabto ayaad habeynaysaa yellow miyaad rabtaa inaad habayso red green ama cyan red blue maanta cashirkan inta ayuu ku egyahay waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddaad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saar si ay kusoo gaaraan muuqaalada cusub hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adiga oo share gareynaya mahadsanidin